halkani waa hubaal bartaan youtube-ka ku leenahay kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa dhacdo xiiso badan taasoo ku saabsan hodantinimada ama deeqsinimada qofka bini'aadamka ay sameeyo xilli uu bixinayo waxa uu u baahan yahay waana dhacdo xiiso badan oo dhex martay ninka labaad adduunka ugu taajirsan ee Bill Gates iyo wiil yar oo madow Amerikaan ah. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar sidoo kale riix gambaleelka si muuqaalada markaan soo gelino kugu soo dhacaan sidoo kale like saar muuqaalka. bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawaada mowduuceena. Bill Gates ayaa la weydiiyey ma jiraa qof kaa hodansan. waxa uu yidhi hal qof ayaa jira oo iga hodansan waana la weydiiyey oo waxa lagu yidhi yaa weeye. waxa uu ku jawaabay markaan jaamacadda ku jiray waxa igu soo dhacday inaan bilaabo mashruucii Microsoft. maalin aniga oo safar ka sii baxaya airportka New York ayaa waxaan arkay wargeys meesha yaala. waxaan damcay inaan gato laakiin waxa waaye lacag yar ama jajab aan ku gato. kadibna waan iska dhaqaaqay waxaan arkay wiil madow oo isagu isoo daba ordaya oo ileh hoo iska qaado. waxaan ku uri lacag ma haystee maxaan sameeyaa. waxa uu wiilkii yaraa igu yiri waa hadiyad xaggayga kaaga timi ee qaado waana soo qaatay. haddana muddo 3 bilood kadib aniga oo raba inaan safro ayaan meeshii soo maray waxaan arkay wargeys meesha yaala. waxaan damcay inaan gato haddana waxaan iska waayay lacag yar oo aan ku gato waana isaga soo tagay. mar kale wiilkii madowga ahaa ayaa iga soo daba cararay waxaanu igu yiri hoo qaado joornaalkan. waxaan ku uri hadda ka hor meeshan ayaan soo maray lacagna ma aan haysan wargeyskii lacag la'aan ayaad igu siisay maantana sidoo kale arintan ayaad samaysay ma qof walba ayaad u samaysaa. wiilkii yaraa wuxuu igu yiri maya qof walba uma sameeyo ee haddaan go'aansado inaan wax bixiyo waxaan bixiyaa lacagtayda gaarka ah. Bill Gates waxa uu yiri hadalkiisii raad ayuu igu reebay aadna waan uga fikiray 19 sano kadib. muddo markii laga joogay ayaa kadib markaan lacag fara badan helay waxaan go'aansaday inaan raadiyo wiilkaas madowga ah. koox ayaan sameeyay waxaana u sheegay inay ka raadiyaan meel walba. baaritaan dheer kadib oo muddo bil iyo badh qaatay waa la soo helay isagoo meel masrax ah waardiye ka ah. waxaan ku uri may taqaanaa. waxa uu yiri haa. waxa uu ku jawaabay si fiican waan ku garanayaa. ma jiraa qof aanan ku aqoonin waxa tahay maalqabeenka la yiraahdo Bill Gates. waxaan ku uri adigoo yar ayaad 2 jeer ama 2 mar hadiyad ahaan ii siisay wargeys anigoo wax lacag wadan maxaad sidaa u samaysay. wiilkii yaraa arintaas waa wax caadi ah waana dareenkayga ayuu ku jawaabay. Bill Gates waxa uu ku uri hadda waxa aan rabaa wanaagii aad ii samaysay inaan ku sameeyo. wiilkii yaraa waxa uu ku uri oo sidee. Bill Gates waxa uu ku uri wax walba ayaan ku siinayaa oo aad rabtid. wiilkii yaraa waxa uu ku uri ma wax walba oo aan dalbado ayaad siinaysaa. Bill Gates waxa uu ku uri haa sababtoo ah dawlado badan oo Afrikaan ah ayaan amaah siiyay waana ku siinayaa inta aan siiyay oo kale iyaga. wiilkii waxa uu ku uri abaalkii aan ku sameeyay iima gudi kartid. Bill Gates waxa uu ku uri isna iima gudi kartid maxaad ka wadaa. wiilkii yaraa waxa uu ku jawaabay waad awoodaa lacag inaad siisid laakiin abaalkii iima gudi kartid sababtuna waxa ay tahay anigoo faqiir ah ayaan ku siiyay waxaan u baahnaa adna waxaad rabtaa adigoo lacag badan haysta inaad siisid lacag. waxaan u baahanahay kaliya naxariistaada ee lacag ma rabo ayuu ku jawaabay wiilkii yaraa. Bill Gates waxa uu yiri mar walba waxaan dareemaa wiilkaas inuu aniga iga hodansan yahay waayo adigoo wax u baahan inaad bixisid ayaa ka wanaagsan adigoo lacag haysta inaad bixisid. taasina waxay ku dareensiinaysaa qiimaha ay leedahay marka aad wax haysataa inaad wax bixiso iyo marka aad waxa u baahan tahay isla xilliga aad haysataa aad bixiso. waana wax iska cad sadaqada laftigeeda ayaa sidaas fadliga iyo barakadeedu ku jirtaaba. macnaha ugu weyn ee qisadan kala dhaxbaxayna ayaa ah sida ay u kala duwan tahay marka aad wax haysato adigoo wax bixiya iyo marka waxa aad u baahan tahay adigoo bixinaya. tan iyo kulanti dambe salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi